السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا ku arkaysaan buugga halkaa yaala sawirka Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti saaran yahay waa buug uu maalgeliyay Ismaaciil Cumar. buuggaasi wuxuu kaga sheekaynayaa taariikhdiisa waxaana ku dhex qoran buuggaasi oo ku dhigay gudihiisa inuu isaga iyo adeerkii Xasan Guuleed abtidoon ay dagaalkii 77 ee ka dhacay 1977 ka dhex qarxay Soomaaliya iyo Itoobiya inay isaga iyo adeerkiisi dadban ay u taageersanayeen Itoobiya ayna u caawinayeen buu ku cadeynayaa buuggaasi una waligiiba ku ahaa maxay ahayd nin la dagaalamaya jiritaanka Soomaaliya inuu ahaabo halka ku cadeynayaa buugga 29 bishii 12 2023 waa sanadkii aan soo dhaafnay bishii 12 u dambeysay 29keegii wuxuu Ismaaciil Cumar ku qabtay Djibouti shir uu ka dhigayo shir lagu furayo wada hadalkii dib loogu bilaabayo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland Hargeysa iyo Muqdisho. shirkaas waxa jooga sidaad sawirkan ku arkaysaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiiro kale oo dawladda Soomaaliya kamida sida maxayda wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga fiqi iyo waxa xagga kale Somaliland jooga Muuse Biixi iyo wasiirka arrimaha gudaha yaa jooga sidaad sawirka ka arkaysiin halkaana waxana loogu soo saaray war saxaafadeed laga soo saaray la leeyahay wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland ba dib loo bilaabaya iyo war saxaafadeed laga soo saaray sawirkaana waa la sameeyay haddaba sawirkani waxa loo sameeyay waxay ahayd shirkaana oo loo qabtay shir shidaarad uu ahaa oo waxa la doonayay in sawirka la marsado Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Muqdisho dhanba kadib kulankii Djibouti ka dhacay 29 bishii 12 2023 waa sanadkii aan soo dhaafnay bishii 12 ee u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya ee federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo maxayd madaxweynaha Hargeysa Muuse Biixi Cabdi ee halkaas oo lagu soo bandhigay ina dib loo bilaabayo wada hadalkii kadib kulankaasi Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland wuxuu u duulay Addis Ababa dalka Itoobiya ee caasimadiisa Addis Ababa kowdii bishii koobaad 2024 waa maalintii sanadkan ku jirno uu curtay ee kowdiisi ayuu halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Ali. ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay ku wada seexdeen sidaad videogan ka arkaysiin halkan nooga socda heshiis loogu magac daray heshiiska afgaradka Somaliland iyo Itoobiya. siday noo sheegeen heshiiskaasi waxa uu Muuse Biixi ku ogolaaday inuu siiyo xeebaha Soomaaliya taasoo ka bilaabmaysa Looya Cadda ilaa iyo Berbera inuu gacanta ka geliyo dawladda Itoobiya oo ciidan badeed iyo ay ka samaysato marsooyin iyo saldhig ciidan badeedaba. dhinaca kalena wuxuu noo sheegay Muuse Biixi inuu ka sugayo aqoonsi dawladda Itoobiya ku weydaarsaday arintaas inay aqoonsi ay siiso dawladda Itoobiya iyuu noo sheegay. haddaba kadib heshiis ka dhaxmaray kowdii bishii koobaad ee 2024 Addis Ababa ku dhaxmaray heshiiskaas afgaradka la yiri ee dhaxmaray Muuse Biixi maamulka Somaliland iyo dawladda Itoobiya Abiy Ahmed uu matalayo heshiiskaas oo lagu siinayay dawladda Itoobiya badda Soomaaliya ka qabo Looya Cadda ilaa Berbera gacanta looga gelinayay. waxa isla maalinta uu heshiisku dhacay habeennimadeedii bogga Facebook page-ka ama bogga ninba sidoo yaqaano ay ku qoran tahay magaca gabadha uu Ismaaciil Cumar dhalay ee haybado Ismaaciil Cumar Geelle ay ku qoran tahay oo luqadda Soomaaliga ku qoran oo ay saaran yahay sawirkeegu sidaad ka arkaysiin halkaan iga muuqata sawirkeegu saaran yahay iyo sawirka familigeega oo dhan gabadhaas oo Ismaaciil Cumar sidaan ognahay uu yiri waxaan u dhisay nin Saadiq John ninka la yiraahdo ee reer Muqdisho oo xildhibaan ka tirsan dawladda Muqdisho ee federaalka xildhibaan dawladda ka tirsana ninkaas ayaan u dhisay buu yiri oo qaba gabadhaas boggeega ayay soo dhigtay saacado kadib heshiiskaasi markii la kala saxeexday isafgaradka Addis Ababa lagu kala saxeexday Hargeysa iyo Addis Ababa ay ku kala saxeexdeen saacado kadib bay boggeega soo dhigtay inay taageersan tahay aadna ugu farxayso arinta ay gaadhay Somaliland.
labadii bishii koobaad 2024 waa 24 saacadood kadib heshiiskii asgafgaradka loo bixiyay ee dhaxmaray Hargeysa iyo Addis Ababa waxa heshiiskaasi 24 saacadood kadib bogga ama maxay ahayd baraha bulshada soo galay warqad yaa soo gashay warqad halkaad ka arkaysiin oo sida taastaantii Djibouti dawladda Djibouti madaxtooyada saxiixii madaxweynaha iyo shaabadii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar ay saaran tahay warqadaas oo dhax cararaysa ilaa iyo maantadan baraha bulshada oo warqadaasi waxay leedahay inay u dhigan tahay inuu Ismaaciil Cumar Geelle uu ku mahadna u dirayo hambalyo Muuse Biixi heshiiska uu la galay Ethiopia darteed ee heshiiska safgaradka loo bixiyay inuu hambalyo u dirayo iyay muujinaysaa ama ay u dhigan tahay warqadaasi haddaba ilaa imika dawladda Djibouti kamay jawaabin warqadani waa khatarteeda ay leedahay sababtoo ah waxay sidataa calaamadii wadanka iyo astaantii wadanka waxaan sugaynay inay dawladda Djibouti jawaab ka celiso arinta oo communication ay soo saartay ay leedahay waxani wax dawladda Djibouti ka soo baxay maahay oo khuseeya ilaa imika ma hayno haddaba waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno dadka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Djibouti oo aan weydiino warqadani inay xagga ka soo baxday iyo wax bug oo la sameeyo beena inay tahay mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Djibouti ee la hadalnay qaar u dhow xagga marwada koobaad ee Djibouti waxay sheegayaan inay taageersan yihiin warqadaasi xagga kalena qaybta labaadna waxay noo sheegaysaa ee madaxweynaha Ismaaciil Cumar u dhow ee xagga xigta Ismaaciil Cumar waxay noo sheegayaan oo ay cambaaraynayaan oo eedeynayaan ay tuunsan yihiin baan leeyahay waxaan tuunsanahay ururkii nabad iyo nolol ee ka talin jiray soo Muqdisho yaan tuunsanahay bay leeyihiin marka isweydiintu waxa weeyaan Ismaaciil Cumar isaga ayaa mas'uulka koobaada marka hadii ay dawladda Djibouti ay jawaab cad ka soo saari weydo arintaasi sababtoo ah warqadani waxay sidataa calaamadihii wadanka iyo saxiixii wadanka iyo sidataa waa dambi weyn oo inay ka aamusto Djibouti madaxweynaha Djibouti inuu ka aamuso warqada uu jawaab ka bixin waayo waa dambi weyn shaki xoog lana abuuraysa ummadda Djiboutina ayna raali ka ahayn weeyaan labadii bisha koobaad 2024 waa shalay dawladda Soomaaliya ee federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre sidaad ku arkaysaan sawirada iyo fiidiyooga halkaad ka arkaysaanba warcad bay ka soo saareen arintaasi waxayna ku tilmaameen dawladda Soomaaliya inayna raali ka ahayn ayna ogoleyn heshiiska safgaradka ee Addis Ababa ay ku gaadheen maamulka Somaliland iyo dawladda Ethiopia waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaaca dalka taaka ka mid ah barigeena iyo badeena iyo cirkeena laguma soo xadgudbi karo labadii bisha koobaad ee 2024 saacaduhu markay ahayd meelaha habeenkii salaada cishaa'i kadib waxa soo baxay warar oranaya waxa soo baxayay inuu madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu shir ku qaban doono Djibouti degdega oo uu ugu yeerayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia mudane Abiy Ahmed inuu Djibouti kulan ugu qaban doono degdega isaga oo halka ugu qabanaya shirkaasi si ay uga wada hadlaan khilaafka imika ka soo dhaxgalay labadaasi dawladood Ismaaciil Cumar oo la wareegay madaxtinimada ururka IGAD inuu madaxa uu shirkaasi ku qabanayo magaca IGAD uu ku qabanayo sanadkiina soo dhaafay bishii 6 2023 bishii 6 ayuu Ismaaciil Cumar la wareegay madaxtinimada IGAD oo uu isagu madaxa ururka IGAD ee geeska Afrika noqday haddaba isagoo magaca ururkaasi ku casuumaya labadaasi mas'uul ee labada dawladood uu Djibouti shir ugu qaban doono si arintaasi loo dejiyo xiisadaasi warar caynka oranaya ayaa soo baxay kadib maanta oo bishu 3 ay tahay bisha koobaad 3 ay tahay 2024 waxa soo baxay qoraal ururka IGAD ay ugu kula hadlayso dawladda
federaalka ee Soomaaliya oo ay leedahay inay IGAD ay qabatay doonaysaa shir ay ku dhexdhexaadiso Muqdisho iyo Addis Ababa isla saacada kadib jawaab cad bay ka bixisay Muqdisho dawladda Soomaaliya federaalku oo ay oranayso annagu kama wada hadli karno arrimo dhulkayaga iyo baddayadu wax laga hadlo maaha laga mana hadli karayo shirka IGADna shaqo kuma lihin mana imanayno waa shir dadban oo shidaarad geerisa weeyaan shirkaasi marka haddaba dawladda Muqdisho waxaad moodaa inay wax soo fahmayso ayna halkaana soo fahmaysaad moodaa shidaarad geerisadii Ismaaciil Cumar uu ku baabi'iyay ummadda Jabuuti inta oo sanadoodan ka digaynay ugu yeedhaynay inuu dawladda Soomaaliya dhibteeda isagu ka shaqeynay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ugu digaynay inay shidaarad geerisadii ay wax ka soo fahmaysaad moodaa duruusta badan ka bixinay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba haddaba marka laga soo gudbo heshiiska afgaradka ee dhexmaray bishan kowdeedii 2024 Somaliland iyo dawladda federaalka Ethiopia waxa kale oo garab socda arintani arin ay isku maran yihiin arintan oo ina dadku aad war uga haynin waxa weeyaan galinkan waxa socday hadallo oranaya Djibouti Ismaaciil Cumar dhibaato xoog la culays xoog la ayaa soo food saaray oo xagga wadanada qarbiga ah raga wadanada qarbiga oo ahaa wadanadii meesha ku hayay intaaba inay isdiidan yihiin kursigana ka tag la leeyahay kadib Ismaaciil raali kama ah isna wuxuu wadaa inuu qalalaase iyo qas ka sameeyo ka abuuro geeska Afrika haddaba waxa nagu maqala maanta oo bishu 3 ay tahay bisha koowaad ee 2024 waxa nagu maqala inuu ciidamo Ruushka ay ka soo dhaadhaceen ciidanka Ruushka kamid ay ka soo dhaadhaceen Djibouti shirna uu ka socdo Ismaaciil Cumarna uu doonayo inuu sameeyo jawi sidii afgambi uu isagu abaabulay oo talada uu ku qabsanayo ninka la yiraahdo Colonel Maxamed Jaamac Ducaale oo madaxa xukuma ilaalada ciidanka ilaalada Maleeshiyada ilaalada madaxtooyada Djibouti ee Ismaaciil samaystay ninkaasoo in adeerkiya ninkaasoo ka soo jeeda deegaanka imika ciidanka Itoobiya la degjinayo Zeylac ka soo jeeda ninkaas oo ka soo jeeda deegaanka Ciisaha ee Soomaaliya ee Zeylac dhulka loo yaqaan Guban ka soo jeeda asal ahaan aanan ku dhalin Djibouti inuu ninkaasi ku wareejiyo meesha oo ka dhigo nin ay taageersan yihiin Ruushku sidaad sawirada ku arkaysiin halkan aad ugu xiran dawladda Ruushka iyo maamulka Ruushka oo ka dhigo inay taageersan yihiin Ruushka wadanka Djibouti afgambi ka waxay sidaana kula wareego iyo socota xalay ilaa caawa waxa socda shirar arinta ku saabsan baa socdo xawli ku socda kulano arinta ku saabsan baa socda marka arinka uu Muuse Biixi ku saxeexay inuu لو يعد إلى بربرة عن تكجلية إثيوبيا هي أرنكا إسماعيل عمر وجنبي إجاف جنبي وميلتري جيبوتي دونا ينو سو كأبابله وروشكو كدم بيانا وكدجا وياله يوجي وحو لجسوا أبابله موسكو وإسلا السعودية ولا بقى الريموت أو إسسارا إسلانا وحويان دتك ومضى الصوماليات ما فهم سنة ورنا وما هيان لكن واحد السعودية مشروعات وين أو إسكو حرية مشروع عاس أو إسماعيل عمر إثيوبيا iyo Ruushku inay isku xiran yihiin iyo Shiinaha marka halka waxa ka soo socda xaalad aad culus waxaan leenahay dadka ummadda Soomaaliyeed inay diyaar garoobaan dhibaato xoog la soo socota nin kastaba inuu u diyaar garoobo difaac way ku qasban yihiin markaas waxaana soo socota oo ka cabsoonayna oo rajaynaynin inuu geeska Afrika ka dhici doono dagaal Soomaali iyo Oromo ka dhax qarxa sababtoo dagaal Itoobiya ma jirto wax la ilaahdo sidaad ogtihiin Tigreeg warcad bay ka soo saareen arinta badda oo anagu kuma jirno shaqana kuma lihin beedadeen amxaaradu sidaan u maleynaya wali wax cad numa haynay iyagna inayna ku jirin baan u maleynaynaa dagaalku sidoo eeg yahay ka qarxi doona meeshaasi haduu qarxo wuxuu noqonayaa ku dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada hadda waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed la socda warar oo u fiirsada waxa socda uu dhaafsan yahay heshiis yar oo Muuse Biixi uu saxeexay uu dhaafsan yahay mashruucan iyo majaxaabintan lagu wado ummadda Soomaaliyeedna waxa laga abaabulaya dalka Djibouti waa Ismaaciil Cumar Geele waxa ka dambeeya ee abaabulayay waad salaamantiin dadkana dhageysanayo